بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اشرح لي صدري للإسلام ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. walaalayaal waxaan maanta idinkala hadashid leeyahay arrimo yar oo ma ogtahay aan aad uga hadlay oon haddana laakiin aan qayb aan doonayo inaan uga hadlo waa dhulka ciisaha ee ma ogtahay Soomaali waqooyi ku yaala waqooyiga Soomaaliya waxa weeye Zaylac. sidaan mar horeba uga hadlay oon uga hadlay arrin uu ma ogtahay carab masriya oo qoray waqtigii masaaridu ay xukumaysay dhulka, ayaan haddana jecelahay maanta inaan ka hadlo isla markaa dhulkaas oo markuu ingiriiska iyo faransiisku ay yimaadeen ay qabsadeen dhulka Soomaalida ay ciisa faransiiskuna qabsaday min Tajoora ilaa iyo Djibouti, ingiriiskuna uu qabsaday min xuduudda Looya Cadde ilaa iyo dee galbeedka oo dhan. marka qoraagaas weyn oo ma ogtahay ingiriiska la yidhaaho Major Hunter wuxuu ka hadlay in uu dhulka ciisuhu yahay 3 qaybood. qayb Djiboutia oo faransiisku haysto qabsaday, iyo qayb min Zaylac ilaa Harar oo ingiriisku qabsaday, iyo qaybta oo ingiriisku biyo baxa iyo biyo qaboobe iyo Araabi iyo dambal iyo dhinacaas oo dhan ilaa iyo Dirdhabe ma ogtahay ilaa iyo Hawaas Ethiopia ay kala saxeexdeen heshiis faransiiska iyo ingiriisku iyagoo mid ah. nidaam labada qoloba ay qabsadeen midba qayb ay qabsadeen. qaybta saddexaad ka mid ay u ahaayeen inay wada bixiyaan. marka taasaan ma ogtahay jecelahay inaan ka hadlo. waxa weeye qaybtaas kale Ethiopia waxay bixiyeen waxa weeyaan waa 1888 markii uu Ethiopia oo 1887 ay qabsatay xabashidu Harar markuu masaaridu ay ka kacday 1887 markay ka kacday 85 iyay masaaridu ka kacday. 2 sanadood dabadeedna waxa qabsaday ninkii Mulinik baa qabsaday Harar. markaas iyay dabadeed kala heshiiyeen labadaba iyadoo si mid u wada socda inay dhulka ciisaha ay qaybtaas bixiyaan. waayahay marka ciisuhu dad dagaalyahanay ahaayeen buu ku leeyahay isaguna sidaas sidii u hadlay carabka oo kale. dad aan la soo jeesanin bay ahaayeen, dad aanan ma ogtahay la jebin karin bay ahaayeen buu ku leeyahay. marka waxa weeye waxa ay sheegeen waa waxa maanta socda. dee Amxaara waa jebin kari waayey, Mengistu Haile Mariam waa jebin kari waayey, Tigreegi waa jebin kari waayey, Oromona maanta ahaan way isku kolbadayaysaa way jebin kari lahayd iyagoo oo Cafar iyo Oromi iyo Balaayo iyo cid kastaba usoo kaxaysanaya. 17kiina 1970kiina Amxaarada oo wato General Getu Edgetu iyo oo dhinacan xagga madaxa kaga yimiday xaggan galbeedkan Cafarta xaggan dhinacan kalena Oromadu ay kaga timid. saddexdu ay isku wada kaashadeen iyo mitir ka qaadi kari waayeen 70 iyaga oo kilil Soomaaliyeedna jirin oo Soomaalina aynan garab joogin ay Soomaalina gargaaraynin iyo keligeed iyay ma ogtahay tallaabo mitir ka qaadi kari waayeen. taa weeye loo bixiyey 1990kii isla dhulkaa weeye dhulkii saa waqtigaa la kari waayey baa ma ogtahay Cabdi Iile loo sii maray oo ku bixiyey. waa kuwa iminkana ka soo ceshaday. kolkama dadkaasaa doonaysaan Samaronow in aad dhul ka qaadataan
dhulka ee maxaan ku dhahday documentiska iyo maxaan ku dhahday leh archiifyada ayaa leh archiifka wuxuu yaalaa maxaan ku dhahday suudaan buu yaalaa jaamacadda suudaan wuxuu yaalaa jaamacadaha ingiriisku yaalaa jaamacadaha masar buu yaalaa documentigu bal waxaad ii soo sheegtaan dhulkan aad ku dacweysaan maanta aad dhibaatada iskugu geysanaysaan ubadkiinni ku waayaysaan aad ubadkii walaalihiin iyo gabdhihii walaalihiina ubadkoogii aad ku waayaysaan bal waxaad ii soo sheegtaan document keliya haatay ood haysataan waxaan aad ku dagaalamaysaan ma airo t v baad ayaad maqlaysaan saqajaankan iyo dadu lacaga siiyey baa ayaad maqlaysaan saqajaankani ku leeyahay jabuuti kolkuu faransiisku soo gelaya annagaa haysan annagaa lahayn uu naga qaatay waan ku dagaalanay oo ciisuhu ka keenay etoobiya edma deganayn ciise kolka hore kolkuu annaga dagaalkii nala dagaalamay naga soo saaray iyo ciisuhu ka keenay etoobiya kule tii hadalkii naftiisii waa ka odagan baad moogtahay ogaasyada isku sheegayahay ama suldaanada isku sheegaya waa kay ku hadlayay daraarta dhaweyd ee moogtahay waa dagaalamaynaa lahay ciise ilka qoran baa xaggaas etoobiya nagaga yimid ee ciise nala degan ma naqaano kule war ma raggan ku qabtay 19 ogaas dhulkan yaad leedahay ciise etoobiya nagaga yimid ilka qoran baa naqaanaa ma naqaano kaa hadalkiisii weeyaan dee garaad meena kolkaa ka lahayn waxaas dadkan dad walaalo isdhasheen oo ilaa qarniya qarni aad wada joogteen buu iyuu ahaa ood wada deganeen maas kala noolaatiin intaad dhulka annagaa le aad leedahin dhul aanad lahayn oonad document iyo wax alla waxaad u haysataan aysan jirin booramadan qudhadkeeda ingiriisku kolkuu 1925 iyuu soo dejiyey boorama nafteeda keligeed magaalo uga dhigay uu soo dejiyey ay soo degeen kolkay nolosheedii ay moogtahay arkeen nolol magaalo iyo nolol duni kale kolka gaalo timiday oo qabsanayso wax baraysa kolkay arkeen ay soo degeen oo kolkaa uu dejiyey ingiriisku boorama oo keliya meel kale ma ahayn way fiday oo waxay ku fuday dhulkii dadkii reer abtiyaashooda ahaa ee gabdhaha ka qabay dhulkoodii bay ku fileen oo abti iyo loogu soo dhoweeyey dhulkii bay doonayaan maanta inay ku orde berrina jabuuti bay ku dagaalamayaan haddaba jabuutina waan ku dagaalamaynaa waa kii imika daraadhaweyd aan maqlayeen oo la soo dejiyey oo abtinimo lagu soo dejiyo anigu garanayo 6 aanan warqadilayn oo haddana qandaraasee la siiyo oo la noolaynayo booramadan kolkaa waxa lagu dhisayna waa lacagtii jabuuti weeyaan meel hargeysaa lacag bixinaysay way ka qaataan lacagtii dadkii soo xagaabaxayey iyo gabdhihii ay qabeen iyo gabdhihii laga qabay iyo wixii oo dhan iyo xagaagiina soo wada baxayay lacagtana soo diraya keenayeyna oo lagu dhisay oo lagaga kiraynaya aqalada waa idin sidee dokumenti qura haatay haddaad haysatiin waa kan ninkan ingiriiska ilaa habaasweyn ilaa ceelka haadow ilaa maxay dhulkaasoo dhan xiisaa lahaa oo deganaa ku leh muxuu u sheegi waayey ingiriisku ama masaaridu mid bay sheegtay taa ingiriisku wuu dejiya aan kuu leeyahay masaaridu mid bay sheegtay oo wuxuu yidhi ma deganayn dhulka dad budhcadahoo moogtay xoolaha kasoo laga keeno waan hayaa kitaabka waan idin tusayaa xoolaha laga soo qaado zaylac badda ka soo dega ee ilaa harar geynayaan iyay dhici jireen waa tii dhacday dee waagii dhaweyd xoolo idil oo iyagu ay leeyihiin oo mid gada bursi uu leeyahay dariiqa oo ragciisa ay wadaan oo laga soo iibsaday oo ninkii ha u keenti inuu ciise leeyahay iyo mooyaan inay garanayeen ba inuu gada bursi dhacay ee qaatay waa dhaqankii waaga war magaalad cilmi baa laydinku sheega oo waad mutacalimiin baa laydin sheega oo caqli baad ka waartooba waxa kane cidda idin gurays idin riixaysa waa inaad garataan od waxaan iska dhaaftaan
وتكون تودان إلى قرمة مودي دوني سانينا دقالنتان عيسى وكاسو مدمانا يا انتاس او مليون ويانو الى ايو هواس ايو دقن يو كسو كعي idinku halkeed degantahay waa kan halkaad degan tihiin zaylacda waa kan waa kan waa kan waa inta halkaa yare akhdar halkaa yare wataa zaylac hargey boorame baan jooga halkaa akhdarka baasha huruudda wataa boorame intaas waa intii ay ku durkeen dee markaa boorame kolkuu ninka ingiriiskii dhisay intii ay ku durkeen weya intaa kali waa zaylac tidhiyaa iyo guban tidhiyaaba waa dhulka ciisaha intii soo hadhay intaad ka qaadateen maahayn waka alfiiri zay boorame wataa intaana waa inta aad ku durugteen ay maantana halkaas dhulkaasi waa dhulka u dagaaladu ka socdo habaas weyniyo marka dee goormaad caqli yeelanaysa ma dhulkaas oo dhan ee laydin iyaad doonaysaan eed maogtahay inaad qaadataan ood sheeganaysaan ood leedihiin ku qabso maxaan ku idhahdaa ya ku qadi maysida miyaa anu waxaan idin leeyahay waa idinla talinaya war walaalihiin ka joogsado cadow badan baad leedihiin cadow badan baa ma ogtahay hareeraha idinka joogood arkaysaan ood iminka oo idiin muuqdee ka joogsada oo cadowgiina u wada tashada maad mid mida noqotiina ood iska mushaaxdiina ilaa iyo zaylac ilaa iyo dirdhabe ilaa iyo jabuuti ilaa meel walbaad iska dabaalataana ilaa hawaas maad iska dabaalataana gabdhihiinii baa ilen lagu wada qabaaye jabuut diradhabe samaroon wuu joogaa laguma adyadeeyo de jabuuti wuu degaa laguma adyadeeyo war ciise cidna ma adyadeeyo xaqiisan aad u diideen dhulka sheegashadiisaba meen buuggan kuma dhigi karaysin inta iyo maogtahay iminka ka dagaalamay isagu ma dagaalamo cidna ma damaco cidna ma damco laakiin haddii aad dee maogtahay ka joogsan weydiin waa kadeed weya kadeed wey kadeed wey dib iskugu noqdo dokumenti kale oo badan baan soo saari doonaa weliba haddaad joogsan weydaan dokumentiyaal badan oon hayo ayaa soo saari doonaa markaa dib iskugu noqdo abtiyaalow ciise waxba laga qaadi waayo dhulkan aad arkaysaan etoobiya ciise 1970 buu generaal geetu oo ciidankii hayla silaase wata 70 waa ciidan generaal wato hadda generaal intee buu leegayahay ciidankiisu kolkaa oo xagga hore kaga yimiday cafarna dhinacan kaga timiday oromana dhinacan kaga timiday mitir ka qaadi kari waaye umangistu sidaasi la eg haddana oo tigreegu kolkuu yimiday maadaama ay tigreega u jiraan cafartu 5 kilometer caasimadiisa oy ku jiraan kililka cafarta kililka tigreega ay la soo dagaal galeen kolkay mangistu la dagaalamayeen ay dhulkii la qabsadeen
iyagoo cafar hadda maaha kolkaa iyagoo oo tigrey oo xisaabsan maadaama ay dhulka tigreyga yani walaalo yihiin iyo dee kolkaa soomaalina ma ogtahay nolosha ay la siiyey oo cabdi iileyna madax ka noqday baa cabdi iiley loo sii maray waan idin wanaajinay sooma idinka dee iyaga dadkana ma ogtahay dhulkooga siiya 5 gobol siiya saasuu cabdi iiley ku saxeexay si nabadgelyo ah laakiin ma ay aqbalin deeda si ay uga dagaalamayaan waa kuwa soo ceshaday marka markaasaad iminka doonaysaan idinkuna inaad ka qaadataan dhul waa idin sidee marka anigu waan idin la yaabanahay dib baan u wada sheekaysan doonaa hadduu alla yidhaaho oo war nimankii waxaas ka helayow tabiya anigu lacag kuma doonayo oo youtube-ka saaniga ugama soo baxay waa ku magacayga ninka ku qora uu helayo oo waxa weeyaan dadkan wacyigelin aan gelinayo iyo dagaal aan wado weeyaan dagaal aan ma og tahay wado oo halgan aan ku jiro oo maxaan ku dhahdaayay min dharaartan 30 sannadood 50 sannadood 40 sannadood waata aan buuggan kolka aan helay aan laabtaa geliyey min 1950 jaamacadda khartuum aan ka qaatay 50 jaamacadda khartuum librarigeega sidii baan adduunka oo dhan uu la soo maray oo yurub la soo maray oo ciraaq la soo maray jabuuti la soo maray oo adsaaba la soo maray iminkana ilaa halkan la soo maray oo halkan ku hayaa hormad waxaan dhacayaan ogaandii kolkaas aan u jeclaanayay buugga wixii uu ka hadlayay baa waxay dhacaya maanta waxaan waa kan dhulkan anaale lagu leeyahay ya kan ingiriiska waxaan uu qorayna buugaggan aan qoray bay ku jiraan oo referensiyadii baan aan ka hayaa aan ka qortay oo buugaggii baan hayaa kuwa kalaan hayaa bal idinkuna intan yar baad maqli kari laadiin bal idinkuna dib u dhagaysto fidiya oo يعني هدي waxay ga maqan yihiin kolka han soo dhigade kol in la dhageysto kolkaan u arko hadii kale sidee waan qancaya leeno imika hadaad magaca Ali Kalib ku qorato waxa ku soo baxaysa 20 iyo 30 aan soo tabiyay ayaa ku tabayso aanan cid badaawan marka sidaas ilaahay nabadgel dhulkeena nabad ilaahay ha inooga dhigo dadkeenana nabad ilaahay ha siiyo bashbash iyo barwaaqana ilaahay inay ku waaraan ha nooga dhigo annaguna han dadaalna lianna waxa maanta socdaa ma joogsan doono haddii uu maanta dumana 20 sano 30 sano 40 sano dabadeed gooray haddaba carruurtooda iyo dib haddana uga dhici waa inaan annaguna aan wax sii dhiganaa oon ubadkeenna sii barnaa iminka ubadkiinu ma yaqaanin dadkan iminka yurub jooga in badanoon xataa arkay iyaga idile waaweyn iska daa moogta waxaanan ka hadlayaba ma ay yaqaanin ubadkoogana bal ka waran marka inay bartaan oy ubadkoogana baraan baan rabaa anu waxaan uga hadlay oo wax kale ma wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hadday aan sii hadashid ilaa way ila sii jeeraysaa ducadii baa xataa ma ogtahay ilaa wayaa marka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.